daawade weli ma kula noqotay arrin markaasi kugu cusub inaad horey u soo aragtay sida hadal lagugu yiri inaad hadda ka hore u soo maqashay ama sidoo kaleete in meel aad markaas tagtay ay kula noqoto hadda ka hore inaad soo booqatay ama wax cusub oo markaas ay kugu horeyso inay kula noqoto inaad sanadyo ka hore la soo kulantay ugu dambeynna naftaada ku qancisay in aad xishooto oo waxyaabahaasi wax jira aysan ahayn oo xitaa aad ka cabsato inay dadka kula yaabaan haddii aad u sheegto haddaba maanta waxa aan kuu caddaynayaa arrimahaasi inay yihiin kuwa jiro oo weliba dadka inta badan ay ku dhacaan waana wax soo laabto oo xitaa qofka mararka qaar uu isweydiiyo waxyaabahan ma wax dhabbaa mise waa dhalanteed arrimaha noocaas ahna afka qalaad waxaa lagu yidhaahdaa dishevu sorry aad baan uga xumahay yaanan iloobin saaxiib adiga i daawanaya hadda ka hore ma aragtay arrimo noocaas ah haddii ay jawaabtaadu haa tahay ama maya hoos igula wadaag si aan fikrado kaleete kugu soo gudbiyo dishevu waa weedh faransiis ah oo macnaheedu uu yahay horay ayaa loo soo arkay waxaana loola jeedaa qofka oo dareema inuu horay u noolaa ama uu soo arkay xaaladda markaasi uu ku jiro fikradda dishevu waxa ay soo jirtay ilaa xilligii falsafigii iyo cilmi baarihii faransiiska ee la dhihi jiray Lamile Parroik uu ereygaasi soo hindisay sanadii 1876 markaasi wixii ka dambeeyana caalamka waxa uu ereygaasi u isticmaalay si aanan caadi ahayn oo weliba lagu qeexay cilmiyo fara badan dhaqaatiirta neerfaha iyo cilmu nafsiga waa ay ku kala duwan yihiin sharaxaadda dhacdadani qaar ayaa waxa ay u aaneeyaan qalqal ku yimaada xusuusta la xiriirta xiriiriyaha u dhexeeya neerfaha mas'uulka ka ah xusuusta gaaban iyo sidoo kaleete xusuusta dheer ee qaybta maskaxda qaarna waxay u aaneeyeen dareen ama shucuur la soo darstay xilligaasi qofka oo maskaxdu ay hayso faahfaahinta dhacdooyin hore taasi oo inooga dhigaysa in aan horay u soo aragnay waxyaabaha markaasi aan arkayno halka dhaqaatiirta qaarna ay u sababeeyeen macluumaad aan horay u barannay laakiin aan ilownay oo ay dib maskaxdeenna u soo ceshatay sidaasi darteedna aan u qiyaasanno in aan soo aragnay dhacdadaasi mar labaad si kastaba ha noqotee dadyow badan oo aaminsan diimo qaar iyo iskuulaadka maskaxda lagu qaatay ee fikradaha ayaa u nisbeeyey ifafaalaha dishevu in ay ka timaaday xoogag iyaga ka awood weyn sida jinniga ama inay ku fasireen fasiraado kaleeto oo mala awaal ah oo aanan loo haynin wax caddayn ah ayagoo sheegaya qofka markuu arka waxyaabahaasi inay la macno tahay inay qofkaasi la shaqaystaan shayaadiin haddaba dib aynu ugu noqonno waxyaabaha dhabta ah ee dhaqaatiirta sida rasmiga ah ay uga sheegeen arrinkaani laba nooc oo dishevu ah ayaa la aqoonsan yahay qarnigan 21aad inay jiraan mid waxaa weeye mid aanan cudur lahayn midka kalena waa mid uu cudur sababo haddii aynu ku bilaabanno midka aanan cudurka lahayn waxaa lagu gartaa dadka caafimaadka qaba qiyaastii 3 meelood 2 meelood oo ka mid ah dadka adduunyada jooga ayay khibradda dishevu soo martaa mararka qaar ayaad isweydiinaysaa su'aal ah halkee ayaan waxaan ku arkay waxaana su'aashaasi inaad isweydiisa keenaysa fikirka kaaga imaanaya maskaxdaada qaybta xusuusta muddada dheer kaydisa ee la yiraahdo hippocampus taasi oo kaaga dhigaysa waxaasi inaad horay u soo aragtay dhaqaatiirta caalamkana waxa ay isku raaceen in laga yaabo waxaasi inaad horay u soo aragtay si riya ahaan ah dadka safra inta badan iyo kuwa daawada filimaanta aadka u tirada badan waxa ay u badan yihiin inay la kulmaan dishevu marka loo barbardhigo kuwa aanan safrin filimaantana aanan fiirsanin sababta oo ah qofka safra waxaa laga yaabaa meelo fara badan oo caalamka ah inuu soo arko qofka filimaanta daawanayana waxaa laga yaabaa sidaasi oo kaleete meelo fara badan oo caalamka ka mid ah inuu filimaantaasi ku dhex arko sidaasi darteed wax dhibaato ah ma laha inuu qofka arko waxyaabahaasi haddii aysan jirin wax xanuun ah qodobka labaadna waa cudur badanaa la xiriira suuxdinta taasi oo marka ay si aanan caadi ahayn usii dheeraato ama ay u soo noqnoqoto weliba iyada oo xiriir la leh calaamado kale sida mala awaal in aad duni kale ku nooshahay ama in lagu waxyeeleynayo waxa ay noqon kartaa tilmaamo cudurrada neerfaha ah ama maskaxda waxaana laga yaabaa inay sababeen muqaadaraad ama sidoo kaleeta waalihii daraac ah oo qofkaasi uu ka keenay qoyskiisa intaasi waxaa sii dheer
in arrimahani ay dadka la soo gudboonaadaan mararka ay maskaxda aadka u mashquusho oo weliba howlo fara badan hal mar ay ku wada furmaan. taasina waxa ay sababtaa laba shay midkood inay dhacaan. waa midka koowaade in aad waxyaabaha qaar aad qaban rabtay aad iska ilowdo oo muddo kadib aad gadaal ka soo xasuusato wixiina aad sidaasi ku qabato. midda labaadna waxaa weeye in aad wixii aad qaban lahayd iska wada ilowdo oo bilooyin ama sanadyo kadib markii aad aragto waxaasi wax u eg aad soo xasuusato in hadda ka hore waxaasi aad rabtay inaad qabato. waxaana sidaasi oo kale iyana la yidhaahdaa disheefu. cilmi baaris ayaa muujisay in waxyaabaha quseeya disheefu ay ku badan yihiin dadka da'da yar marka loo barbardhigo dadka da'da ah. dadyooga qaar ee haysta diimaha sida hindusimka, junism, buddhism iyo sinqaha waxa ay rumaysan yihiin in qofka marka uu dhinto uu dib ugu soo laabto adduunka isagoo noolo nooc kaleeta ah. afka qalaadna waxaa lagu yidhaahdaa ereygaasi reincarnation oo macnaheedu uu yahay dib u soo laabasho. sidaasi darteed dadkaasi iyaguna waxa ay aaminsan yihiin marka aad waxyaabahani oo kale aad aragto ee aad u malayso in waxani hore aad ula soo kulantay macnaheedu inay tahay noloshii hore inta aadan aadana noqonin in aad waxyaabahaasi soo aragtay. laakiin waxaa xaqiiqo ah in ay tahay khuraafaad iyagu ay aaminsan yihiin. daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii aynu uga hadlaynay dhacdooyinka ah in waxyaabaha qaar aad horay ula soo kulantay balse ay xaqiiqdu tahay in aadan soo arkin. tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waa anigoo inkaga tegaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.